كصومالية هو وحيدقني هو دلك أفريكا جعلكي صبري لقن كلا الدنيا وذا كلا الدنيا ayaan halkan kugu cadaynayaa inaan qoraal ka samayno oo adigu aad ka samayso ayaan cadaynaya waxa weeyaan 44 kun iyo sagaal boqol iyo 44 xisbiga la yidhaha itixaad alislaam marka waxay su-aalahani waxay daba socdaan topiga xaaji ku hadlaya ku saabsanaa waraysigan ku saabsan sidii axsaabtii yani ku horreysay lixdankii ay usoo yani baxeen gaar ahaan xisbigii USB-da iyo kuwii kale ay xiriirka lahaan isla SNSha yani u halgamay gobonimada markaa su-aashan aan ku weydiinaya xaaji waxa weeye wafdigii masaarida ee ka yimid ee waddanka yimid 1944 gaar ahaan magaalada Boorama inay ujeedadoodu ay socdeen soo maaha ujeedada siyaasi ay ahaayeen maxay ujeedadoodu ahayd وفقها إنه يمدي أفريقيا قطنكا. وحها وقت سياسي وح. وطبعا في وقت سياسي مصر حكومة فاروق. وقت أوصل بريء. صح. وإحنا إيما دليل الجريان سومالنا. شعور يعني وطن ما كل سنة. صح. وحرية دماغ هاي سمع عارف الشاي. سياسي. يوجدوا هاي marka waxay ka soo iyagu wax ka yimaadeen xaggan berberi ka yimaadeen si lacag soo maray waxay ka yimaadeen diyaarad bay soo raaceen waxay ku soo degeen maxay leeyahay hargeysa ku soo degeen bay dhaartii ka yimaadeen maxay leeyahay Boorama socodkooda halkaas Boorama un bay socdeen gobolada kalena way marmareen gobolada kale ee soo mareen anagu warama haynay laakiin Boorama bay ku ka yimaadeen oo qofkaasi axmaarka ayaa dhulkoo doonayay markaysaa dhulkii ingiriisku hayay ayaa axmaarku aad u doonayay صح soomaaliduna way diidanay way ka hortiiday marka wixii islaamee markaysaa dawladii صح waxay doonayeen in xorriyadda dadka la siiyo meesha oo xabashida lagu soo celin marka masaaladna saasay galbeedka u yimaadeen oo kala talinayeen in dadka u doonayeen صح marka xiriir iyaga aad lahaydeen marka ka horreey oo مثلا يعني masaaridii miilki oo مثلا ama xiriir waraaqa ama warsaafsi iyo wax noocaas masaaridii Soomaaliya يعني xisbigiin doorama ahaan أنت مساعدة يا سومالي ولي بحديد حلوة صح وحلي ده عيلي صح هو قطع ده سيل عيو معك يساعد الوحيد ده يبدو ربيع إنسان حلي كوب ما بكر بقولنا صح اسمه بيجي استلامنا يعني ضبطه كويس حزب جيل لقسم ليه جيبوتي يكيد زارع لقسم ليه كواس ودبد كويس أحزاب عين كاسو لقسم ليه ودبد كويس كواسنا ورك يوم معك يساعي حلقة قاعدة شدي ودي وحول هي سياسة دي وحول هي الشيخيد مصارد جيبوتي زارع هو يميني دور من ويسوق قاعد صح فكوا حريق كلية خاصة حريق خاصة قسم كلية لله صح marka ciyaaraha ka wada hadasheen ha u badnaa waxa laga wada hadlo u badnaa annagu waxaan u jeedinay inaan dhulkaasi ingiriisku marka gacanta ku hayo
ee dagaalkii gacanta markii ingiriisku ha qabtay ku qabtay markii dagaalku dhamaaday markii dagaalkii dhamaaday gacanta uu ku hayay ha inaan axmaar lagu soo oo xorriyadiisa la nasiyo sax taasaan anagu iyaguna gacan idinku siiya ayaguna gacan nagu siiya sax iyagiina waxay karteen sidaa boormaan ka wada baxan oo wayna raaceen dhulkii baan soo maraynaa bay yidhaaheen etoobiya laga dhulkaasi ma arkaysaa haye ingiriisku gacanta ku hayo abubaraan marray waxaan marray lafa ciisaan waxaan marray maxayda jaaraan marray bankii oo dhan baan marray halkaasaan jigjiga ka tagay jigjigay iyay ka hadlay iyaguna waxay u weydeen 4 cisho afartii cishaba soomaalidii joogtay ayay la shireen maxfalla wada ka hadleen oo yani dadka gubaabinayaan inuu dadka xurriyadiisa doono oo axmaara lagu soo celiyo kolkaasay dee soo noqdeen waxay kusoo noqdeen hargeysa kolkaa dambe haddana muqdishay koonfur bay koonfur bay haddana tiriyeen xukunka ingiriisku muxuu ka qabay booqashada ma ka hor yimid mise yani waxbuu kollay wuu ogaa ingiriisku yani dadku waanu la socdaa kama si toos uga hor yimid mise waxba ingiriisku waxyaasha isaga ruuxiisu ma jeclay ragga madaxda ee ma arkaysaa barlamankiisa iyo dawladdiisu mashruuc beeban la yidhahdo bay soo saareen beeban iyaba soo saareen oo waxay doonayeen soomaalidu inay israacda kulligeedba wixii yani afka soomaalida ku hadlaa inay israacaan axmaarna in lagu soo celin sidaas iyagu mashruuca iyaga ku jireenba markaa raggii madaxda ee ma arkaysaa ama boora ma jooga ingiriiska ama jigjiga jooga ingiriiska ama ogola jooga ama hargeysa jooga wax koortagay kolkaa keenay may jirin may jirin midda kale kaasi wuxuu ahaa booqashadii waftigii masaarida waa markii waftigii masaarida uu ka tagay xaaji waxaad samayseen soo maaha xisbigii yaraa la oran jiray itixaad islaami itixaadka markaa masaarida uu ka dambeeyey booqashadii 45 ayuu ahaa 45 markaa xisbigaa yar waxaa ka horreeyey baa tidhi naadi sport ciyaaraha ayaa ka horreeyey horta boorma ka sax oo dadku hay iskugu yimaadaan dhalinyaradii kolkaa dhulka joogtay sax kaasaa ka horreeyey kaasi ingiriisku midin ka caawiyey dee ingiriisku noogana diidin waa sameyneen si toosana noogama hor gacanana kama sii anagu baa anagu wax siyaasadii waxmaad ka hadli jirteen mise isku imaatinka unbuu ku koobnaysa horta isku imaatiga unbuu ku koobnaa iyo tacliimta ina wax la barto oo naadiga gudihiisa ingiriisigana lagu dhigto ma arkaysa diintana lagu dhigto dadkuna yani wacyi galo saa unbuu ahaa marka xaaji sportiga uu ka sii qiimo badnaa uu ka qiimo wuxuu ahaaba xataa tacliintina waa soo gelay meeshii waxbarashadu ka bilowday naadigaasay ka bilowday ya sportka iyo tacliintu halkaasay ka bilowday marka naadigan wuxuu ahaa ilaa 45 ilaa 6 ilaa ma yana 43 buqaas ayuu ahaa ilaa 42 ayuu naadigaas 42 ilaa 43 marka waxna waa lagu baran jiray marka madaaris baan jirin madaaris baan dhulka jirin oo isagaasaaba wax lagu baran jiray farta carabiga ingiriisiga diinta waana la iswaariyo isku imaatinka dhan buu yani naadi sax ciyaaraha la ciyaari jiray xeegada u badnayd iyo kubadda iyo labadaas u badnayd waayo xisbigii markii dambe 45 la oran jiray itixaad islaami ee samaysmay aad samayseen 45 ujeedadiisu ma wuxuu ahaa mid diineed mise mid siyaasadeed mid siyaasadeed bukaasa waramana waan ka furay deelac waan ka furay jigjiga waan ka furay jigjigana SOL baa ka furay oo koonfurta ayaa soo gaadhay annaguna maarkaysaa intaaba waan ka wada furay SNS-na waxaa hargeysaa laga yimid oo laga furay iyadana jigjiga waa laga furay SNS waa laga furay marka dambe SNS noqotay marka dambe SNS isku bedeshay waa laga furay marka xisbi waliba ahdaaftiisuna gooni buu ahay xorriyadoonna waa la wada ahaa si aan xabashina noogu soo noqon ingiriiskuna nooga tago
marka dambana isku daraan keeno saas ay ahdaaf isku dar la keen Ah. ahdaaf ugu weyn ugu weyn taas ay saafay marka xisbiga isaga laama ku hayso maaha مثلا سيل عقرة ها لامبا او برا لامبا أو بطل لا يبطل هذا جيجيرا لامبا كذا الجيزة ما بطل هذا ما يبيسكون انا لي لكن صدق قلبك قلبك خاص أم بطل هذا قلبك هذا ما هو دك الله فعيسي لي قاعد قلنا كله ودا كان والله ما يريد الله ما يرو ودا كل عندك موي قوي حسبك مرة موها dadkan laamaha higin kala joogtooday marka ma dad idin faaftirteen baa sadad u dhashay meelahaas ay joogaan baa ayaa jalan sayir coka horta qofkii madaxda boorana xisbiga boorana madaxdiisa ayaa dhulka mari jirtay baabuurka haysan jirtay kolkaas ay inta kalena wada fuli jireen kolkaas ay u dhiibi jireen dad dhulka dadka dhulkaas ma arkaysa meesha degma ayay kolka xisbiga laamihiisa kaga tegi jireen جيجينا دمال حقوق ود الصومال دول المتفاعلوا أيها هو دور من برتوجه كلابات بقى ها ود تري جيجينا بعشرة ده هاي بليرة ده هاي عند وحي وده بقى وده كلام يا صور كلام ها حس بقى ميو كو يا يكو يمدي يسق عليه إنجليز هو كلام حس بقى مثلا ما إنجليز كنت يقول لوك حبشة يعني أيوه dhulka Soomaalida xabashiga kolka ugu gumaysan ayay jireen nin waxa joog jiray jamca halka oo xaakim caam ah ninkaasina waa nin boormana mar xukumay hargeysana mar xukumi jiray dagaalkina xagga Kenya ka soo galay oo wax joog jiray jijigu joog marka inta waa tii la xal isku oran jiray British military administration marka nin janana ya xukumi jiray ninkaasina حقيقة هو أقرأ إن أنا حبش ما حبسون نقول سومالي بحرية ده بس ده هو سبوا خاسي وأدو ينودي في قريب أو ده رياشي عقاشة هاي وقردي لو كان جكتي جوي كي قدر يسكوي سومالي ده كله وحنا ولا بامشي ما أعرف سأل ليش تجري وحنا ولا جري حرية دي هنا دونتان ده ولا سن أدو شيء جاي يوم ده سمعني لسوق يعني حزب غيره وخد رئيس سمونا مفتي بوده وحمر بوده صح وكنيس سجان قبلي أخذت نيستي أخذت سجارتي مركي عشان الدولة الحمر عشان الدولة الحمر يقولون مفتي قوام دخل واي واحد كمل هذا مفتي كان دخل وقاسلود وقاسلود صح واحد كان لبعضه شيخ حسن ثاني صح أيوه صح لبعضه يعلمه علمه كواسا دخل متشو وشركي وينا الصومالي اسكو تكاي ee doorashadii lagu dooranayay ninka uu koonfurta haynaya dhulkii Talyaaniga laga qaaday dawlad yani dawladda hayn doonta taasista ayaa ka qayb galay wakaasi marka idinka ra'yigiina marka waxa sidii yani Soomaalidu baa ay ku tashatay in moqtida anagu waxaan la tagnay maxay leeyahay go'an anagu waxaan leeyahay inuu ku taliyay kolka tagtaan si isku dar anu helna Libya Ingiriiska inoo doortaan anagu orodayadii halkaas صح anagu ra'yiga ku dareemayno ya waay oo hadaynu inagu Ingiriiska dooran weyno oo dawladaha kala ama shanta hayna haystaan ama dawlad Talyaani ama kala dooran isku darkeena caqaladii صح imika sanadkii waa kan wada hayeen geeba dhulkaas mashruuc beedna waa kan ku dhawaaqay idigu Ingiriiska hayna haya dhahaban وانا قلت كيف كستاسا حزبي يا حزبي كاسا صح لكن ده نفس الدرجه ولا قبطه ولا قبطه واتي لي واتي لي شنو تديروا لكن انا هدف انا كنت كاسو كان متقول ما تقول يا ومن ايوه وحوي خلق صماد وكشيب خلق صماد وكشيب لكن كل ما نجري دي صدقان كينو حقون كيف ساسو ساسر نقول يا وايو waxaan xiriirinay kula duudubtii xabashada qaadanay isagu hayo Somaliland isagu hayo aw hayo maxay leeyeen dhulkii Talyaaniga haysan jireen isagu hayo isku darkiidu shanta Soomaaliyeed wadib yaraanaysaa kolka isaga hadla doortaan ma sida wanaagsan Ingiriiska yaana ma taadna hayo 10 sano la leeyahay صح kabacdi Soomaaliya shanta Soomaaliyeed oo Djibouti ninkii kolka ma arkaysaa ay meesha joogeen
talo weyn buu naga siiyo xarakaadka xisbigayga uu kula taliyey waan ka wada tashanay oo isnagu saas ah saasana anagu ku daray xisbiga rag kale nagu la socday saddexa waan kasoo magacaabay mayna dadkaan daray 12 iyo xisbi walba dad baa ka tegi oo maxamed tegi anagu waftigaygu saasaan daray xisbigaygu saasuu ku tegi laakiin waa laga batoo dee axsaabti kale waladan waqooyiga ee hargeysyada qabtay iyo burciyo oo michael mariyo dad shaydaan ku jireen wixii un baa dee yiro anagu masawaxigaan saraacayna berigaa horan kolkii dambena way naga bateen waxay shanta dawladaha maxsuul ahayd qoladii muqdishona qoladii koonfureedna shanta dawlad bay waxaa maxsuul ahayd annaga dee waa lanaga bato soodkii waa lanaga bato soodkii laakiin anagu sidaa hadafkaygu saas waa oo soo jeeda waayo khaladka anagu kuma dhan jir بين قرامين هاي واضح وين لأنه أكيد ما خاف على إنه دلوقتي حاضي أحمر بالله قعدت في قعدت في كل قابو حي وطنيين ها حزب غيري وحي وطن يسووا صباح وحق صوم هذا من الشيء فريد سير كل قاسو كفتح دقال مسلح وقاي تطلع ما خد انت إلى ما أركز هاي أو بحل بحين يمكن كده ما أفرق يكون تفكير يا حرب يعني ما أركز هاي جهد بعد جهد هذا تكلم هو يعني بيجي تجا لا تجا قسمة لا تجا قسمة حارده يجي كده قالنا كده قالنا إنك waxaad ku soo noqotay xaruntii yani meelahay yani oo baxo kaliya yaan ku soo ya ku soo noqotay ilaa laga gaarayay konton iyo afartii kawa kida jigana yani qaxa iyo dilka iyo dalka إلى لفعيسة إلى ماركس هاي دوكا بنكا إلى بولوشي إلى دوكا صورنا دقال هسه اللي بيجرو سلاسة إلى ماركس فهم برو أيها دقال قصة عندي روح بس ماشي اللي هو كده اللي بقول يا دين عنك اللي هوتي دين عن أساس وخلاص دين عن هوتي دين عن ساعة وخلاص أو أريد دوكا سي أوار ساسة هاي أوار سيفير يا دوكا أوار سيفير هود بوها سو أوار هم كل كمان وخل كده ما ماركس جيجي غير كعي هي انجلش خصوصا مقدي هاي ودير سيفر سيفر اريا وحي او برا مرحله صح يعني هودنا او كان حزب لي نوفي يدي مكان انه او برا صح الى فريق الى هذا او برا اللي بحي او دكيور اللي بحي سيفر مكان مركي سيفر اللي بحي كنت رياض فرسي ايام مكان هذا يا حزب قاعد اكيد يا وآدي على مركز واكد بنانبحة واكد بنانبحة العيلة توركا شيطان كا بهاي هي الله ويرتي وحول الودعين أنا ودعين صون وقت صود خير هرجيس اللي يقول هو بقرنته أنا هرجيس ده وحنا كشيرنا إيه سمالور نسبة تنته الرب عيمد إيه كان اللي يمد إيه كان اللي دقمودن إيه اللي كنا في النوم هي كل دو هذا الرجال يجود اللي ينبه حرية الخدمة ده لندن لو دري ودياش والخرج صح ولا يعني وقتها دولنا ولا هي ولا ما كان مركي أبرق صباح ذن وحتصل نقطة حرمتي منه هذا حرمتي بورن مقصود ويعني مرة في الدقيقة ورا تركز أنا حسب اللي وقف فري حسب اللي وقف فري odayaashii la noo diray go-aankii markaa ka bacdi ay la yimaadeen muxuu noqday markaa in odayaal badan kuwii london u diray way tageen london bay tageen way ashtakoodeen wax rastoo lahoo yani maarkaysa ingiriisku ballan qaaday oo la yimaadeen ma jirin ya marka waxay idinkii go-aan baad gaadheen annaga go-aan baan gaadhay in xorriyad laga doono inta hadhay waqooyiga oo ingiriiska dhiibo uu bixiyo kolkaa odayaashii aan diray wax go-aan wanaagsan oo yani lagu soo aqbalay oo kolkii wax lagu cadeeyey ma jirin laakiin kusoo noqodkii buu kifaaxiba kasii adkaaday meesha وليدي لو بيلا لحن إلا ولا لحن جينا كذا أنا إنجليز كيف سميات لي فويسكو دين سمية برلمان وكا هل يمكن واحد أبقى عليه كل يصير قضية كل يصير جمالها لي يمكن برلمان طولي مزين مزين أي دون مزين أنا بو حزب بيجي قرن أو كفرها هي الشعب يجي كالبيت وفتي مع صوت الحوبة
waftiga anaga ka madaxa صح hargeysa واي wax magaalooyinka kale way wada yimaadeen صح waa la wada shiday axsaabtii واي alla diidaa la yidhi yani markaas ay barnaamijka abuzayid مسيبك dib buu doonayaa inuu noo dhigeen حل بي alla diidaa la yidhi yani laga ولا qeybay اي sidii baa lagu goostay صح kolkaa isagu اه nomination buu sameeyo iya ايوه ayuu isagu magacaabay صح intii baa barlamankii اه isagu musayif kaa gashay واي laakiin soomaalidii aqlabiyadeedii اه way qaadacday اه برلمان barlamankii كايسر way qaadacday صح waa la diiday صح saas waa صح كافتي كان واي waxaad timid hadaba halkan waxaa xisbigan yani magaciisa USB da ee xisbigii hore ee Itixaad Islaami yani isbedelka markuu dawladda sameeyay dabadeed la magac baxay yani USB da oo aad samayseen xilligan bishii October 1959 go'aanka yani xisbiga yani cusub aad samaystaan qaadataan kii horena yani ay wajiga aad ka dhigtaan يعني maxaa sababta keentay maxay xaaja waxay kolkii barnaamijkii musayifkii la sameeyey ee qaadacadina dhacday ayaa xarakaadkii sii weynay waay kii hore haddaba sameynay waqtigaasi ahaa waxaan nidhi aan ku bedelno xisbi innaga iyo ma arkaysaa reer bariga dhulbahanti iyo warsangad iyo wixii bariga iyo inteena galbeedka ah ee ay sii wada bulshada xisbi aan wada samaysano oo aan isku tagno keliya xisbigaana kolkaan laascanoo tagno ha la magacaabo oo kii la karto ha noqdo keenan haddaba dee inaan inagu xisbigaa cusub ka qayb galayno ha lagu baaskareeyo halka oo xisbigaa kii baan dee ma arkaysaa ka soo saaray xisbigii hore inay xisbi cusub oo dadkaasi iskugu tago in la soo saaro ayaan iskugu tago ya go'aanka waxay ku gaadheen Boorama ku gaadheen dabadeed waraaqo iyo kolka inta ka horeysana liiskii uu wadi kari waayey xisbigii barlamankii maqdisa musayifka u socon waay ku guuleysan waay kolka uu ku guuleysan waayo waxay yimid maxay yahay ninkii wasiirka mustacmalka gaar lana soo ayaa ka yaa lana sport waay wasiirka mustacmalka kaasaa dee waqooyi oo dhan mudaharaa timi kolkaasaa la yidhi xorriyad baan dooni lahaa kolkaasaa la buuqay kolkaasaa wixii oo dhan kolkaasuu isagu soo saaray maxay dee communicate au yidhi soomaalida xorriyaddeedii inay doonato waan ogolbahay itqaa doorashaana la sameynaya ya oo yani ma arkaysa barlaman ayaa la dooranaya aan kii hore ahayn kolkaa kaa maqlay ayaan haddaba anagii doorma aan fikirnoonay haddii barlamanka imika waa kaa la sameynaya idigu iyo reer bariga qoladaa reer bariga oo isku tag sameeya xisbi keliya itikaadka ku wada gaa 59 ayaa sidaa dee anagu xisbigaa lagu go-aamiyey boorama ina xisbi kale aan iskugu tagno waraaquna way noo socdeen iyo talooyinka iyo waxbaa noo socda iyagana way ogolaadeen warkaan weydiinay ma inagaa idin imaadan si annagaa noo yimaada noo kale weydiyaa saasaa xisbigu kolkii dambe ee kolkii xagga aan iskugu tagnay iyaguna SWL iyo SNL iyo ku kala jiray ya reer bariga SWL iyo SNL iyo ku kala jiray iyo nafti iyo UFT ku kala jiray markaan meesha iskugu tagnay ayaan tashanay muddo 15 cishaan tashanay qaraarka wuxuu ku dhammaaday inaan xisbi cusub iskugu tagno kiibaa USB noqday oo soo saaray magaciisa axsaabtii horena saasaan uga tagay marka xisbiga cusub aad samayseen dhibaatooyinkii ka hor yimiday maxaa u badnaa yani kollayto haddii ingiriisku waayo ma jeclo kollay in xisbi cusub oo siyaasi ahoo waxaa ka hor yimid ingiriiska kolkaasi aada iyo aad buu xisbiga cusbaa loo nacay waayo wuxuu diidayay SNL-kana kolka hore ma ogolay SNL-kana ma ogolay oo xisbi yani waa mutadarif u oran jiray oo rabshada u keenaya annaga kolkii meeshaa soo baxnayna halkii SNL uu ka qabto kale ayuu naga qabtay kolkaa aada iyo aad buu noo cadaadiyey ya oo noola xadbiyey dee wixii dad baa loo dhigi waayo waa la waday wixii doonayaan hala xidhaa layidhi wixii doonayaan ama halkaysa ay hadaayo ha ilaga soo xisbigeena adkaynaaday secretna hay noo ahaado israaceen
يا صح إسراع يعني لبدا حسبي لبدا حزب اس ان يو maxay leeyahay USB USB واي مكاتبه غير ما كان قلنا وكان هو ugu sheegay soo ma laga waan hormiyaan u sheegay USB USB اس ان waa runta waa markaas macnaheedu dhigano waxaan nidhi wixii wasaaradda way naga dhaxaysaa ay naga dhaxaysaa wixii electionna geeskiisa aan ka wada galno USB wixii meel jooga SNL USB aan ka furmin SNL aan ugu wixii SNL aan meel ay joogana USB aan ugu اتخاذ سياسة عندك والله إحنا كسر سهل لبيت معرفة اسمي دي أنا لبيتهم معه أسأل من الله خير شيء الله واحد أيوة ابن كل شيء سياسة دولة دولة الذي أسأل من قوة الاسم هو حساب ما كان مركي حسب النفط يعني يفتح مركي حسب نفسه ما يسمى وكل وفقا استمراراتي في حيد كل نقطة يجا وحنا يعني كل يجا إنجليز وفقا دبليز يبغى يسكون ما بكين لكن قررت أستمرهم يبغى يسرد مني ولا بحس بيستهدف أيام صح هو تحرر روح الرياضون صح وكان الله بدي هدف كل كذا لكن أنت لا نسرع أنت لا نسرع أنت لا نسرع هالكاسي يجي بيسود مني هالكاسي بيسود مني نفتروين نفتروين دعاية جرائد بيقول نقول الجنة على الوعي وحنا نقول نقول ولا هو قبلي هو عين كان هو كلمة حزب ما هو حزب وحسين لكن السنة شيء هو قعبة بس وأمان أب ونعمانين خطافة كان فين اللي بدأ حسب مركز كان كم كده من كوبريشن أي سنة كوبريشن أي سنة إسراعان إسراعي اللي بدأ حسب إسراعي أنا مركز جوبنمدي بدل أي دليل يا جوبنمدي بدل إسراعي إسراعي اللي بدأ حسب هو يعني حسبية دي كلها يعني تبديل ما هو ها إنجليز أي أغلبية طبعا أغلبية مركي يعني مركي سعاري خندقي مركان دور سمي إن مركي سعاري أن إسرعانو ولا بريقة شرب وين ما سمي شرب هذا عن كوض خير دوكي تولوين في كلبات كوكا لأن حبشت تولوين في دمي جوجين جيجون بيكون كاجو وحلا وحنا نقدر نقدر في قلياش يا مرحلة يوم ما نقدر يزيل عيمين وروان قدر waxaan isku nimid goorma mutamid weyn ku saaray waxaan u baqdinay xisbigeena bedelaadiis yaan ka ku bedelayna inuu xisbiga halka waa ku soo baxay yahay oo ilaan u qaadan wax kale isku tagna inaan sameeyno saan uga qayb galay dawladda aqlabiyadeeda oo yaan kuraasideena ay badato xorriyadana ma arkaysaa 60 ka inaan ka dambeeyay waxaa saan wada badin kartaa وحي والله شغل راعي وأنا مرحنا ما أنا مرحنا ودي حكي عن كل شيء لا وحي جاي رجع وقري عشان نكون جيران كل يوم عارف إنه نور عاوي بدين عاوي بدين يكون قريب ما كان واحد اللي راس عمود لاس عمل باقولون في كلام قارن كل ديار هاي الجاب وضم بيسوي أي سلاش يجيبون في ليبيا هل كذا أنت الشرع قاعدة هل كذا ندبر لقيت الشيء ترى واحد خصوصا ترى استجابة واحد كوبا إن الحزب العصب يسكون المعلوم ما دام أنه قلنا حزب دوني على هاي أيقون قارن اسمه هاي قارن اسمه قارن إنجوا فهاي وحنا نسخة تورو حزب ذاك ينتهي الناس يبسطون هون ده فريد خلينا خيركم وبرضه كان عم خوي الله ما عرف شكله شيء خاصة أبو أنك أو نقدر تذكر إن وحي لما عيرة تذكر ساسة سب أيدين يا هاي مكان شعور حوقة أياك شيء مكاوي كي بابو مكاوي وانا كي بابو هذا ما هو البا يعني ما هو البا لما لقفري ما هو بالله سعود لقفري الجابر لقفري برندر لقفري على لقفري ديسان لقفري يا دور ما لقفري حسب يا كل الله من يقول ما هو البا
marka waxa qolinka sanadka yani cigal madax oo ahaa cigal madax oo gacan bay yirsiiyeen iyagu way soo dhaweeyeen laakiin wali isku darki lama gaadhin laakiin marka lafteeda way soo dhaweeyeen isku darka waxaan ka dhignay daraarta la fasaxo maxay leeyahay programka propaganda doorashada daraarta si aan loo qaban dadka inuu ka sii doorno way fasoo ingiriisi lagu soo jeedaan haddaan imika isku darsano nuwaabtina waa hebel iyo waa intaas oo dadkaa la xeexday daarta programka oo bilaabmo daarta annaguna galbeedka ka sheegno idiguna bari ka sheeg dadkii yani xisbiga USB-ga inuu isagana ku darsado oo shaqabkana meelkooda geliya maalintaan ku sheegay siisaan kolka sambe daarti uma sheeg أغلبية بقصة وزارتنا سيدا أن كل شيء نبغى الله يلا أنقذنا كل كانوا وزيرك وحنا ما هذا social service تعليمته إياه عافمتك أرجع لا دوح نقول وزيرك communication ولا ذيك اللي ندي دي وزيرية بنا ويدو يا كل كي أرجع حاسب دعي وحاسب لما هذا أيها إنجليزي أفرت وزير أيا للدولة يا بقردي يا دولة إنجليزي أي دولة سائلة إغنى وبلاد كسود حنا مركا أفرت هيد وزير أيا دواء بشي قبل أيا هذا وقتنا عنك أو إغنى لما ويا حاكم عام برسها كل جرا ونفع نسبتري أنا وصومالي أنا كحيستان وعن كحيستان نكى برمس هام هاي سبتري عاف نوها ماليد ومحمود عبد العال الولدي كان وان كحيستان شنت يرا ينكي برسها أيا دلنا هذه بقولتي ما أركز إلا لندن جوكتي إيه صومالي نوسو دنيا ونوخ عبده كل في هذا وين لنود جديد أي هذا مفاوضة دي عن كذا ولا هذا الفي عن الرياض ويك صدق عشوا أي حبلين دي جالس عم يسوي هذا إنجليزي وأنكو أتخيس إن أنا حبلين العهن أنا مقولي dadkii nasbu nabro soo balan sida weeyaa marka aad u dambeysay oo inuu carqaladna hor dhiga damcayo wuxuu yiri anigu warigii aan dhulka Soomaalida imid ee ugu horeysay zeeca ka soo degay dadkii zeeca joogayay ee kamid ahaayeen odayaasha Maxamed Cali Bolo iyo Xaaji Diide iyo علم ورفاه يحجبسي يا كبار مقهرين رقاسي المعاهدة الله دكتي دكتي سيميه يجندو صح ومن بتريسان وين غير بربريو غير جيسا غير إرقابو أنا واحد لما أدري. فقلنا أنا وحنا كيا أنا أنت أو بنتي. ما حد كله يجي. مركا أنا قاعد بيرهب البيت يجري معي لي أفتوزي. أنا قاعد هذا وحنا لي. فقا أثير السياسة تأخذ قرن أدنى تستوي. فقا يدله. أنا قاعد بكم جال. ما أنت سقى بياردي. يقول قرب. ما جبته. أحزاب أنا ممكن أحزاب تكتلوا يسنا أنا قاعد نسوي اتخاف كانوا وانقلوا عنا وزارين ما كسب ما كان الله ما بحنا إن هذا من عرقات مهربته وترى هذا في زي عدة كي هو عاويه
ree berbere kuma jirin iyo ree hargeysa kuma jirin ree cergaaba kuma jirin maanta looma bano xorriyadii sidaasaan ku doonaynaa ee waxaa lanagu siiyaan markaa arrinkiis yaa uu waday dib buu la noqday ayaca kolkaan koo tagnay ee dadkii wax laga qortay meesha dadka ay dhaleen ku jiraan ha ayuu wixii arrinkiisiiba dib ula noqday kolkaa shirkii waa la xeeray berrito 9 saacadood aan isku nimaanay yaa la furayaa ilaa 2 saacadood ayaa wadnay 3 saacadood ayaa la isku afartay kumanikeekii inaan waqooyi xorriyadiisii la siiyo arrimo badanna uu nala soo qaado inta ka horeysa kowda julaay kowdeeda koonfur qaadanayso in la bixiyo juun la bixiyo 27 juun 26 juun in la bixiyaa la isla wada karto taqriirkii ku dhammaaday oo aan ku heshiin waxyaalihii badnuu nala soo qaaday uu yiri waxyaala nagu xidhan waxaan ka wada hadallaba waxaa ka mid ahaa rileygii berbere ku dhisnaa inuu sidiisii cada waxaa ka mid ahaa wuxuu nala soo qaaday inaan xuduudaha iminka siday tahay ay ahaadaan waxaa ma arkaysaa ka mid ahaa inaan israaca waqooyi aan israacayna koonfurta ya oo nagala taliya isago oo yani ma arkaysaa ay laga fiirsado ya waxaa ka mid ahaa axmaarka inanaan wax adyada anaan ku sameyn adisababana aan xaybislaasa lasoo mufacdoon tagno ya waxyaalihii waa nagu xiray waxyaalahaasay ka mid ahay waxyaalihii waxaan ka baqnay in ma arkaysaa haddii imakaan halkan ku celinoo nidhaano waxaasi anagu wada yeeli mayno in xorriyaddaba dib loo dhiga dhowr shay oo yar yar oo berberi ka mid tahay rileegaasi waana balaya baalkan transmissionka warka labiyo tegidda adisabana waana golahaydaan inay xaylislaasa lasoo marto waxyaalahan kale xuduudaha iyo waxana kolkaan hargeysa tagno ayaan dadkii madaxdii ee odayaashii aan ku noqonaynaan ka raadidaynaa markaa dee halanaga daba yimaado markaasi arrimaha kale xaggaa aan ku dhamayna hargeysa yaan halkan dee wax badan fadhi kari mayno arrintii ingiriiskii dhaartii dambe ayaan haddana dib waktiga u dhamaa dhaartii dambe haddana soo tushaneen anaguna tashanay ayuu yii wixii aad tiraadeen waana qoraa communicatekiina yani maarkasta xorriyaddeena waan soo saarayna waxay ku dhamaatay 27 juun xorriyadda la siiyo 26 juun bay ku la siiyo waxyaalihii ingiriiska aad ka wada hadasheen oo yani maarkasta ay idiguna aad fulisaan saasaa de xorriyaddii lagu bixiyo janaadkii iyo wixii oo dhan labada kusoo baxay markii arrinkii dhammaaday ee cisho joognay ee loo yakayday wixii aan la tashanay ee dastuuriyadna lanoo sameeyo ilaa 1 Juulaay soconaya ayaan dee soo baxnay diyaarad soo baxay talyaanigaa soo maraysan qoladii talyaaniga ayaa waxaa nala socda kolkaasi anagu la tegayno isaguna muqdisho ka yimid 3 nin oo qolada reer muqdisho ayaguna usoo dirteen mufacawado inay nala joogaan 3 nin cabdilqaadir soobaa ka mid ahaa labada kalena dee magacyadooda imika ma cusubin ay kuma jirin ingiriiska wuxuu nagu celiyey nimankani anugu shirkeennana ka qayb geli maayo lana shiri maayo innaga waxay naga dhexyeen haddaad waqooyiga tii somalilantii idigu goori u wada hadla kolkaa doonaysaa laakiin shirkayagana iman maayaan saasaa shirkii anay uga qayb gelina laga jooji laakiin de hudheelkaygii bay joogeen way nagu sugayeen kuwii baan haddaba is soo raacno waxaan ruumaan cazumad weyn nooga sameeyo oo wixii arday joogtay iyo wixii soomaali joogtay aad baa laganoo qaaso rag iyo dumarka dabadeed kolkaan nagaa joognay ayaan wasiir khaarijigii talyaaniga aan haddana qaadnay waxaan raacay 2 wasiiro xagga waqooyi xagga koonfurta 2 nin oo madaxa ahaa oo xaaji faarax cali cumar ka mid yahay odagaan oran jiray iyo afartayadii iyo sekretarigayadii ayaa israacno wasiir khaarijigii
والله هذا لو حنا الإنجليز حرية أن كدوم إن أنا وأتام وغيرنا وانا أديك أنا وحن كهربنا إلى حرية دي يمتى نشيك أبو بلون قاعدة جولاي كودي ده مقنع ساعي وح الخلاص وأنت أقدم ليس أنا بنقله لي أنت إذا نسأل كل ما توصل نوا وأكون سكان ساسا كنا وحنو عليه إنجليز يعني هو خايف كل سكمان أنا وين متين حرية السيد إلى أنا حرية عم فينا إنه إذا حرية السيد سكمان أنا وين خياليين وهذا تلاقينا هاي وين خيال إما كان أنا روح الله وحنا جينا يجي الخبرين شغل سكمان إما قال ده هذا نسوي زيارتين وهو نفس البيت وهو نكافر ساير نبدي نكو على سما دي خسوا بعرو أنا وان صود الله وحنا عدم عدم فكان أياد عدم وحي الصومالي على الدوختي يوحي دي ماركة ساي شخاله يوحي دعم شركة يوحي الدم الجوري يوحي الصومالي والله أياد جرام كعدمي لا مقالة دي عدمي اسعد مقابلة أن تاسو خلاء ولا عرق يا تلك ركض ليا أيادي اللي نبدي تياري وأنا قحويني كل كان قحويني وجراء في رعد من دون بعدين سؤالات بدن بين وديه وأخوه وأخوه ما بدا سؤالات بدن بين وديه وحين وديه دون وجهه لا يجي راح كذا حماسة لما كان عدنيتي أي كقابل كل دي سوالي بحث غير شيء لأنه أنا محسوب إني أبدا دارت عرفتنا بالماركس هاي حركات طبعا حرية دي أنا كنت دونتين أقدر عليه أنا بروح عن الروح حرية صورتها لا مجري دونت حرية دي اللي بكون والله تلمي لما كان ولا لنا عربية عبند هذا أساس أيوة تلو نفسهم لي مسيسيين وأنا كفاحة يقال لنا وحكوا الله لا غيره إذا قلنا النسيون الموية وحنا اللي كبهنا بنتريا وأنا بلقى كل هذا عندما أصوب ولا يود يارد هالبيسك هالبيسك قالوا إنه هالبيسك مقابلة عن هذا وحنا خوي خم قناه بيجي بهذا الكلام المجال يكون ولا بيجي بالموي هي مجال يا برا الجابو الأسعانود بربرة ميجا بورما زيلا يعني الدنيا ولا بيجي كل هذا واحد مقابلة وين أياك تعدل ماشي هذا اللي كل هذا سو هيني لا نرمي ذي خبضة أنا وأنا أخيين كو أخيين هيدي حرب ألقى ما يجي كده كده الله خبر منك أو السنين هل كان سامكو أخيين أنا خبر بالضبط هو الرئيس أو أن وجدنا وجدي أنا وحيد للدولة حسابت كنت تمسك إيش اللي يسمع هذا كو كمان ينام كم كمان أنا نام خبرت ولا لا واحد كان الشيخ شيء ولا ما واحد كان تيجي ولا واحد يديه أنا اللي يجي أنا خبرت يصير الله بسنة يصير الله هم تاني يصير سكتر له دلالين لا قبل هذا عنك خبرت هذه واحد ساكت هذا لا ساكت والله يسوع أقبلين صعب والله ولا تسي تمي وحيد بابورا ولا بالهم كل قوة بستي تريد ولا بابورا قريتي أرنت ساسو فرحان أرنت ساسو لما دار اللبات دي ديارتي أنك كنا عدم وين وجبتي دار اللبات دي اللي تكلم هاي دي ينتهي هاي دي الساعة أفرد يجي وزير باتك وذاك جري ليلا وتجري ليلا أيام كده أمبارسيدر كنا ونقابل إنجليز وإحنا جسنا وين النابوري يعني الشركة تكون هذه سنة جديدة حي السلاسة بس في حي السلاسة أيام دارت بالله سديد ساعة شركة اللي قبلها وحين ما رح يجلس لا سرحانة وي يستجنوا وصوف هذا الكلام على الفلان أنا بروح الجيدني وارف حريات دي بس إنجليزي وقوي يستي أنت أساس لو يستي تكسر لو نوست أنا سلم وأنا أجنبي وأفريقيا معي يستجن حريات دي هذا هو عن فوق ما هذا هو نتاعي بقول كأفريقيا وهنا ده واحد دول لنا هدي حريات دي إنجليز دي المسيحية تلياننا يعني ما رح يساوي يريد نشيل تليان كده دولي تلياننا بحنا يوقع إنا قدنا حريات دي وحياة هيساس وما يعني إنا حريات سيسا
وتاريخ هذا هي معركة الشرف هذا هذه وحده هي زلت الجواب في واحد نقطة كل سوق إنجليز كنا معاملة بالإنجليز هنا يا حضرتك وأنا أقول لك إذا خالي كليان كنا معاملة بحنا أنا أقول وحن بحنا يا رب في الصومالية مج هذه يبقى دون إنسان قلدي لو قوي فدريش إنه ما سمع سنة ولا بدينا أنا كنا قلنا ويا أنا كان الله سعودية برد السبوع سعودي كل هذا مدرسة الجنسية تري سنة أفر ساعات 5 ساعات بعد ساعات ما كان أنا قاعد يكدون إنه فدريشن ولا سوي سنة وحنا فدريشن عنه إلكتريان ياكو هل هذا إلكتريان ما يصير أيام منه كل هذا فدريشن عنه عن كل كلامنا مجرد ولا هي لها أنت دونا لو جيران يبغى يسكو لغة يسكو دين يسكو آلة يسكو طبيعة أيام كل هذه ستارة ساس يقرأوا يانو ويسكو دين بانهاي يسكو أفضل نهاي يسكو دكان بانهاي يسكو يسكو نور بان يقرب أول أنا كنا ما بقول كلام أو أنا يعني ما كلام عارم أنا كمان تروح نقول تلينا هنا تقول دين بحسها أنت على حسابه جواب كده مبدئيا واحد نقطة يلنا شركة بقى محلي ولما هذا واسك قصة مقامي وهديس عم صور مقامي ما كان هديس اللي من وقع مقامي أي صور كل بيت بقى هذه يعني قوة غير أسان قوة مقامي وحبر ما شيء صور ولا إنساس الوقت معته تي سووا هاستيو يتي سوما الله نيو يتي كونفرنس يتي جبوتي وكوكب على ود بقى نقول يا نقول على ودي ما أنت ما رجع وشيء ده هرنا إنه قد حيصير وقت كان ما رجع ما خلق ها ما أنت دقاق لو وش سميه ويا نسيو يسوي يد قوته أخي ما تيجي كده هذا ما يدرس كده نقول هذا حكم لها وسون أحمر هلا خير حديث إذا ما غسل جيست والمتدرع عشان لو غسلوا قيس النظام بس لما إمام ما يعمل سرع بعمر ما له أنا أقول متلمين كل كان جمهورية مغنى بيقول إيه الخير ماشي على سمنة والله هو ده لكن أنا كان الله إمام ما يغسل أنا أقول متلمين الرمادي عنقول على اللي خوف إنجليزي تاسع إسرائيل أصلا كره طيب إسرائيل كل صوب كره أيها أنه خلنا في الدولة دخل كهني أيها برلم برلم كذا هلا قود هلا ليه إسرائيل إلى 6 عشان لقوا تحدي دراتي قدام ما يسافر أيها أي نقطة وحي قاعد صوبها إسرائيل هلا بعسكر يوم إسرائيل كل كي تهلا دمي أيها هي مقدشو لقوا وزير لغني وملحق ولك الشيخ محمد لك قبيل الله يدا قبيل دكتور محمد قبيل هي من دخلين اللي والرئيس الجمهورية الرابي وها هي من كانوا اسمها أوفيسر أيها الصدر وديار كل مديان وقد بيلوك اللوح يداه أكثر في يوم كاب بس كلام استعن سرعة وكادية أنا قلنا حرية عن هذا إذا قلنا حرية إنه هيست كل كان لابد حرية قادم ده كل كان يسكت هذا أنا يقول كي دمبرين هذا دي بوشر وزارة هي يو برلمان كي واحد عندنا شيء دمان سكون نقول واحد قال له نقطة تاسع من معاملات وقال ده اللي بده يقولون خلق قادم ما دام اللي بعد تسأل سكون رعنا هاي أدكتر ودي من ممكن يلي من هذا أنا هو سرع يوم باسكرين متشوه أنا هنا برلمان خيرية وزارة هي أحزاتي يكون كل كان الديدان أنا وهالقارن ما عنده هذا الديدان لأنه بدو يدون يكون هذا ما نسال هذا إسراع دعم كل إنسان إسراع ساسا قوان كي المودي هو أنتي
sidii dee muqdisho aan ku tagnay annagu kolkaan israaciil baad kahay sidaas ahay reer muqdishona wayna soo dhaweeyeen aad iyo aad inoo soo dhaweeyeen waxay nimankii wadeen ay sideen wax wadaba ugumaanaan tegin wax gooni ma nimankii la yimaadeen oo ayagu meel ka keenay si kale loo soo diray talyaaniga baa ka dambaysa laakiin nimankii muqdisho iyo dadweynihii iyo wixii dunidii wax ka dhacayaan markaysaa wanaag iyo tamaashaad iyo waxba ka dhacay sidaa dhawaa laga sheegay in la doortay aadam ya sabankii in calanka in la qaatay maxaa yeelay ra-iisul jamhuuriyadka in la qaatay caasimadii muqdisho laga dhigay caasimad ku-xigeenkiina hargeysa laga dhigay taasaa dee la wada baaskaray oo yani markas arrintaa ku dhamaatay saaciba intaa ayaan marka intaasna ma intaasi waxay ahayd waxay ku saabsanay yani xagga siyaasadda xisbigu uu sameeyey xaaji dhinaca kale ee matalan arrimaha bulshada iyo tacliinta iyo iyadana bal waxay aad ka qabateen wax ka sheeg xaaji waxaan ka qabanay xagga bulshada xagga tacliinta iyo xagga horumarka xisbigu wuxuu shirarkiisii badnaa iyo dadaalkiisii waxaa ka soo baxay guddoonsaday inaa dhulka nabaad guuray iyo dhulka ma arkaysa boqolaba ka dilaaceen iyo dhulka dooxyada noqday inuu wax ka qabto oo shacbiga galbeedku oo iskugu tago xooggiisa saaro oo dhulkaana la buuxiyo boqolaha dhulka ma arkaysaa daadadka iyo waxaasna la xidho geedahana loo wada baneeyo hoostiisa dhirtana laga ilaaliyo goynta kolkaa dhulku nabaad guurkaa uu nabaad guurayay aw dee kolkaa saa kaga joogsado kolkaa magaalada tuulaha boron la yidhaah ayaa laga bilaabay aan ka hirgelinay magaceena waxa loo bixiyey waa iskaa wuxu qabso ugu horreysay ee ma arkaysaa wadanka soomaalida laga bilaabay taasaa ugu horreysay markaa tii waktigaa xisbigu bilaabay ee shacbigana ku raacay ee laga shaqeeyey ilaa taa maanta dawladnimadeena ay dabad ay raacday ay wado weya xaggii iskaashigii iyo waxaas halkaas ay u dhiirigeliyey uhoreysayna wadanka saas ahay xagga tacliimtana waxaa jirtay kolkii sheekh la furay ee iskuulkan sheekh la sameeyey kii u horreeyey ina hargeysana mid laga furay galbeedkuna yidhi annagana iskuul galbeedkaa gooramaha noga furay ingiriiskii inuu nagu diiday in xisbigii shirarkiisii aw shirar galay inuu qaatay qaraar uu yidhi war haddii laynoo diiday in laynoo sameeyo ingiriiska nimankiisa naga raacay inagu iskuulha samaysan lacagtana inagu aan iska guro lacagtii baa tijaartii magaalada loo qaymiyey waxaa kamid aha xaaji hadliye oo bixiyey waxaa kamid ahaa jaamac maxmed oo kamid ahaa waxaa kamid ahaa sheekh nuuryar nin la oran jiray ayaa kamid ahaa waxaa kamid ahaa ma arkaysaa rabilago oo isna kamid ahaa raggaasi lacag bay uwiyeen waxaa kamid ahaa sheekh nuur qaadigii sheekh nuur cabdillah ayaa kamid ahaa kolkaa lacagtii la ururiyey ayaa aqal la keeniyey aqalkiibaa haddaba macalinkiina waxaa loo qabtay sheekh cabdiraxmaan sheekh nuur lacag 2 sanadooda ayaa la celiyey 2 sanadoodaa loo dhigay khasnada sanad walba bil walba 100 rubood hala siiyaalay kutubtii iyo waxay wax ku dhigayeenna ilaa Djibouti baa looga doo oo xisbiga uga doo wixii baa la wada hagaajiyey carruurtiina waa la qoray dhowr iyo 30 inan ilaa 40 inan yaa halkaa lagu bilaabay saasaa xagga tacliintana xisbiga wax uga qabtay oo wax uga qabtay inuu ku jiro dhaqaalaha iyo horumarka bulshadana inuu qayb inuu dhinaciisa qayb weyn ka qaato oo ay kamid tahay yani siyaabaha imkaan soo sheegay takreer ku xigtana waxay ahayd ina daabe tuulahan bilalaya ina isagana ballay weyn oo dooxash iyo muuse xasan laya oo biixereera ina halkaana laga hirgeliyey oo markii dambana dee ingiriiskii ka maqnaan maayee aniguna waxaan ka galay inuu isaguna qayb ka qaatay ha oo lagu kalifay yani inuu qayb ka qaato warti dadkii sanay in tacliintii ingiriiskiina meedan mar haddii iyaga dadku wax tarayaan
inuu isagana ku dhiirado ku dhiirado. isagana ku dhiirado oo oo degmadii uu degmadii qayb wanaagsan qayb wanaagsan waxaan wadda maarkaysa iskuulka secondary camudeed iyo u dhisay oo dhistay oo oo dugsi dhaxaa dugsi dhaxaa oo dhistay oo ah dugsi hablaha oo dhistay oo ah waxaasoo dhan ilaa Hataa ilaa tuulooyinka. ilaa tuulooyinka ilaa xurriyadda kolkii la qaatay dee halkaa ah xalinta halkaa laga heli jiray haddii qaybtii siyaasadda ee horaan usoo sheegay iminka waxaan kaga noqdo waxaa jirtay 58 naga diray halkan Soomaaliya protector oo uu noo diray London oo ujeedadu waxay ahayd inaan lookalada sida lookalada loo sameeyo aan wax ka soo barano markaa London baan tagnay waqti dhowraan waa ahayd magaalooyinkii baa lanoo qaybiyey magaalaha Scotland yar gobolka Glasgow ayaana noo kolkaa joogay markaa nasiib wanaag waxaa noqotay Maxamed Siyaad Barre oo isaguna 58 raggii madaxda reer militariga ka ahaa booliiska ka ahaa Muqdisho ilaa halkaasi loo soo diray inuu isna tababar ka galo xagga aqoonta kriminaalka iyo wixii bilayska lamid ah markaan casuumad loo wada sameeyey oo aan iskugu tagnay halkii iska tagnay oo markaan casuumadii aan wada cunay annagii aan isku sanay oo wada halkeed ka timid adiguna halkeed ka timid sidii oo isfahanay annagu dhaxdeedii oo soo jeediyay Maxamed Siyaad Barre oo yiri warukaasoo dawladnimadeedu way dawladda lixdankii uu dawya annaguna dagaalkii waa naga wadnaa iduguna dagaalkii way dagaalada iduguna geestina ka wada waxa inoo ballan inaan xurriyad keeno lixda dadaal markaysa isku darna aan keeno si aan kaga guulaysan cadowga labada cadow ayna hayaana midna inoo ogola laakiin innagu waxaan isku ognahay inaan xurriyaddeena ku dagaalno oo xurriyadda iduguna aad qaadataan lixdanka wixii ka horreeya annaguna lixdankaa wasaacina muddadayada ay ku dhowdahay israacana kolkaas aynu israacno oo sidaa jamhuuriyad israacada oo kuwa kalena aan israaceena ay ku daydaan aan ka dhalin halkaas sidaasaan ballan ku kala qaadanay annaga iyo Maxamed Siyaad aniga iyo Maxamed Siyaad gacantaan isku gacan qaadnay waan kala soconay sawirro badan baa lanaga sawiray sawirradii dee imika ma arkaysaa ay meelaha ku leeyihiin waqti dheer weeyaan imika aan waan garanay saasay ku dhamaatay